iyadoo ay maanta ku beegantahay 26 Janaayo oo ah maalinta loo dabaaldego International Customs Day ama maalinta furudooyinka adduunka, waxaan rabaa inaan mar koobaad munaasabadan uga faa'iideysto inaan u mahadceliyo dhammaan mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda, gaar ahaan waaxda furudooyinka oo ku howlan mar walba tayeynta iyo dib u soo kabashada furudooyinka Soomaaliya. waxaana si khaas ah rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya furudooyinka qaybahooda kala duwan oo u taagan mar walba ilaalinta canshuurta iyo dakhliga aruurinta dowladda Soomaaliya. sidaas darteed waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursaddan inaan iraahdo hambaliyo dhammaan meel walba aad ka joogtaan dalka Soomaaliya. gaar ahaan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo tiimka u dhabar adeega aan la shaqeeyo airportka, tiimka dekedda, waaxda wasaaradda maaliyadda joogta iyo dhammaan qaybahooda kala duwan. waxaana leeyahay hambaliyo guuleysta. waxaan rajeynayaa sanadkan sanadka xigana insha Allah inaan sidan si ka qurux badan u wada dabaaldegno. waana mahadsantihiin.